sagaalkii bishan July war ay baahisay shabakada warbaahinta Shabeelle oo ahaa hooyo Soomaaliyeed oo uur lahayd oo ay dhaawaceen ciidamada AMISOM kadib qarax gaadiidkooda lagula beegsaday deegaanka Arbaco ee duleedka Muqdisho ayaa taliska ciidanka AMISOM ay ku sheegeen been abuur ay soo dhoodhoobtay idaacadda Shabeelle. AMISOM intaa kuma ekaan warka ay soo saareen waxaa lagu sheegay in shabakada warbaahinta Shabeelle ay ka shaqeynayso isku dirka howlgalka AMISOM iyo shacabka Soomaaliyeed isla markaana la sumcad dilayo hawsha ay hayaan. taliska AMISOM waxay ugu horreyn qirteen in uu sax yahay qaraxa ciidankooda lagula eegtay deegaanka Arbaco. waxaa kaloo ay xaqiijiyeen in hooyo Soomaaliyeed oo uur leh ay ku waxyeelowday halkaas, laakiin waxa ay ku doodayaan in hooyadan Soomaaliyeed aysan ku dhicin rasaasta ay rideen ciidanka AMISOM balse ay ku dhaawacantay firirka qaraxii gaarigooda lala eegtay. Shabeelle oo iska bariyeelaysa hadalka AMISOM waxay cadeymo dheeraad ah u keentay falka guracan oo AMISOM ay kula kacday hooyadan oo iminka dhibane u ah dhaawaca ay u geysteen ciidamada AMISOM. hooyadan oo lagu magacaabo Sacdiye Maxamuud Dheere ayaa hadda lagu dabiibayaa isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho, waxaana dadka Soomaaliyeed u cadeynaysaa halka xabadda ciidanka AMISOM uga dhufteen, iyadoo dareen murugo leh ku sheegtay in cunugeedii ay uurka ku siday uu rasaastaasi ku dhintay. sidoo kale hooyadan ayaa ka codsatay mas'uuliyiinta sarsare ee dowladda federaalka Soomaaliya in arrinteeda ay soo farageliyaan loogana soo dhiciyo ciidamada AMISOM xuquuqdeeda kadib rasaasta ay hubiyeen. عدينتين والله aniga meesha qarx ka dhacay waxa u jira wax leh xabada koowaad ee bilaabeen ay dhacday taas inta ay soo gashay inta ay soo qadbay فولا عدينتي فولا هيسي عندي كوكو وريتي عندي واحد بعدين عروش انا شو ذا ميرانك تحتمل هذا لا كثير shabakada warbaahinta Shabeelle ayaa haysa raajo cadeynaysa in ciidamada AMISOM rasaas ay hubiyeen haweeneydaas ay ku dhaawacantay isla markaana uu ku geeriyooday ilmihii ay caloosha ku siday. waxaan kaloo haynaa warqad caafimaad oo AMISOM ay siiyeen hooyadaasi iyagoo qirsan in rasaasta ay fureen ciidamadeeda ay wax ku noqotay, walow qiil kale ay u yeelayaan kadib markii Shabeelle ay baahisay dhacdadaas oo argagax gelisay dadka daneeya arrimaha xuquuqda aadanaha ee gudaha iyo dibadda ku kala nool. intaas oo dhan oo uu ku jiro muuqaal laga duubay hooyo Sacdiye Maxamuud Dheere waxaan ku baahinaynaa bartaan internetka ku leenahay ee shabeellenews.com. waa fal ka baxsan bini'aadanimada oo qayb ka noqonaya xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee ciidamada AMISOM ka geystaan gudaha dalka inta ay ku guda jiraan howlgalladooda ama ay isaga kala gooshayaan qaar ka mida deegaanada dalka. waxaana howlgalka AMISOM oo ah howlgal ay taageeraan beesha caalamka gaar ahaan wadamada ugu horeeya dhowrista xuquuqul insaanka uu maciin biday in uu ku been abuurto shabakada warbaahinta Shabeelle iyagoo daboolaya fadeexadda ka haysata dhibaato noocaasi ah oo ay u geysteen hooyo xaamilo ahayd oo haatan ah bukaan la ildaran rasaasta aan loo meeldayin ee ay hubiyeen sagaalkii bishan July 2017 ciidamada AMISOM. hase haatee Shabeelle oo ah warbaahin baahisa warar sugan oo leh xigasho lagu kalsoonaan karo ayaan ka gaabsan doonin soo bandhigista wararka ku salaysan xaqiiqda oo leh cadeymo buuxa haba saamayso cid kasta oo ku tumata xuquuqda dadka rayidka oo haweenka iyo carruurtu ay ugu nugul yihiin.